roobab lixaadle oo toddobaadyadiina dhaafay ka da'ay deegaanada xeebaha ee Somaliland ee dhinaca galbeedka ku yaala siiba magaalada Saylac ayaa sababay duqsi halka ka dhashay oo dadka deegaanku ay sheegeen inuu dhibaato ku hayo. Sidiiq Maxamed Burmad ayaa arintaa u dhabagalay oo warbixintan inooga diyaariyay. Dadku nool magaalada Saylac oo khadka telefoonka aan kala hadlay ayaa ii sheegay in dhibta ay ku qabaan ay ka badan tahay intii duqsiga lagu yaqaanay. maaha mid habeenkii saxda maalintiina ma jirto bogcad ama meel aanay rarrab u saarnayn duqsigaasi. deegaanada dhinaca galbeed ka xiga magaalada Saylac ayaa iyagana shuban biyood ka dilaacay sida ay sheegeen dadka magaalada Saylac ee aan la hadlayay walow aanan toos u xaqiijinin. waxaana suuragal ah in bulshada magaalada Saylac uu ka dilaaci karo sidoo kale haddii duqsigani xaaladiisu sidan ay sii ahaato maadaama uu ka mid yahay duqsiga cudur faafiyayaasha. dadka arrintan aan kala sheekaysanayay waxaa ka mid ah ninkan oo ku sugan magaalada Saylac. Assalaamu calaykum. Calaykum asalaam. magacaaga ii sheeg walaalo. walaal Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faarax laakiin baa duqsibaan ugu haya farabaan oo bal ii sharax sidee macnihii farabaas idinku haya. wuxuu noogu hayaa magaalada gebigeedii roobkii yaro daay ayuu ka dhashay. haye ninkan meel wax ugu cuna male. haye habeenkii waxa la arki jiray duqsi habeenkii seexdade. waa run. maskani ku habeen seexanayana ma. haye waa 24 hour. oo marka duqsiyadii aad arki jirteen muu ka badan yahay. wuu ka badan yahay sayd. imika muu ku muuqdaa. miyuu ii muuqdaa mise imika halkaa waxaan gacanta ku soo dhaqaatay wada yaabisa wax. marka waa ilaa goorma. waxa weeyaan ilaa 10 cisho. inkasta oo duqsigani meel walba oo magaalada ah uu soo galayo oo uu buux dhaafiyay haddana waxa ugu daran goobihii cuntada laga cuni jiray oo duqsigan awgii la geli la yahay. nimco cali cadaawe oo meherad laga cunteeyo ku haysata magaalada Saylac ayaa iyana iga warantay saameynta uu nolosheeda iyo shaqadeediiba ku yeeshay duqsigani toddobaadkii u dambeeyay. fiicanna wallahi magaalada waxa ka dhacay ma taqaana meel istaaga badalad heleen bal ka war carur yar baan haysanaa maati baan haysanaa dhulka wada duqsi waxaan ku uri waxa sameeyna ma garaana marxalad mooyaan iyo gurad ku socday meel kaga nabadgelo soo kale ma jirto suuli ah madbaxa daarada. adigu ma meheradaad haysataa saa lay sheegay. ha waa meherad nocma ah. maqaaxi weeyaan cuntada iyo shaax iyo waxaan ku kariyo. marka shaax iyo cuntadii bal ka waran. maxaa shaax iyo cuntada maanta iyo shalay marka wax loo soo galo baa arki weynee. waayahay marka maxay dadku leeyihiin wax ka cunaya iyo dadka wax ka iibsanaya maxay saxniga markuu afartan ku soo tago uu qofka falaxalanaya iska kacaya waxba kuma lacagta ku siinay iska ka tagay wuxuu ku arkayaa qof bila nadaafada hadana wadayaaka waa duqsigi. laakiin magaaladii way kala siman tahay. ha magaalada gebigeedu waa sida. ha marka adigu maxaad kula tacaashaa. maxaan kula tacaalnaa fatayar gaas yar waxa yar ban inta caagadar ku shubo waan ku shubay laakiin way dhaaftay imika de waxa wixii wax baxtanay ma jira way marka aabaad damiiska yar iyo faraasadaha yar waxa dad ku masaxdo de ku istaagay sax. marka imika maalin walba naafataad soo ibsataa. ha haye waxba kama qaadayo aroortii duurkii maqribkii. waayahay macnaheedu xitaa weer kaayro doorka iyo kaalmo saxanayo ado meel madax xulusho mooyaane. marka awal roobabku markay da'aan sanoo kale miyay dhici jirtay mise waa wax laakiin hore u dhiman jiray markaaba laakiin ko zaayidba. tanoo kale maydaan arag weli. ma arag weli. marka maqaniye miyuu leeyahay isagu mise maqaniyuu leeyahay. ha uu ku qaayaa adana iska celin. waaya adana ku cunayba ku cunaysta. marka tusaale ahaan wax saameyn jirka miyaad ku aragteenba ama qaniye ama barbar. ka saaba halisaad ilmi yaraab cunaya adigiiba ku cunaya waxaan ku risaa iska celisa ma cuntada kan karisid bixita adigiiba ku cunaya markuu soo dhaafo cuntadii iyo suuliga madbaxiya qalada macal dhulkii sida roobka ku yahay wax ka madow xitaa waxa kaaga dhacaan ma baarkisid daqsi awgiyo laale. marka cid ka shaqeynayso oo ama hadal hayso ma jirto ka shaqeynayo hadal hayo waxna ka shaqeynayo mid toona ma jirto hadal hayo toona xitaa. ha laakiin magaalada aad baa looga hadal hayaa. والله بلا دتكو يا بين إذا وش يسوون بلا يمان سريدي أنا مخلص لا ويجي